Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan u wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafic Show. Waa 11 Maarso 2026 qodobada qaybtan aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa hadda soo saaray war-saxaafadeed ay uga hadlayaan in ay bilaabeen weerarkii 36aad oo ka dhan ah saldhigyada Mareykanka. Trump oo ku celceliyay in la burburiyo awoodda gantaalada Iran iyo macluumaadka ku saabsan Sacuudiga oo qorsheynaya in uu Ukraine ka iibsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Qodobo kale ayaa raacay. Aynu ku bilownay dowladda Spain ayaa qaaday go'aan ay hoos ugu dhigayso xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil kadib markii ay maanta u yeeratay safiirka ka jooga Tel Aviv oo ay dib ugu celisay Madrid sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AP. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa waxyar ka hor ku dhawaaqay inaysan Iran ogolaan doonin xitaa 1 litir oo shidaal ah inuu ka gudbo marinka Hormuz haddii uu faa'iido u yahay ay dhaheen Mareykanka iyo xulafadiisa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP. Dhinaca kale, macluumaadka ku saabsan ciidanka badda Mareykanka ayaa ku warramay inay diideen codsi uga yimid shirkadaha maraakiibta oo dalbaday inay galbiyaan oo ay ka gudbiyaan marinka Hormuz, iyagoo sheegay in diidmadooda ay la xiriirto inay sarreyso khatarta weerarada ka imaan kara Iran, iyagoo go'aankan ay qaateen ee ciidanka badda Mareykanka uu ka soo horjeedo hadallada uu Trump u sheegay ee la xiriira in marinka Hormuz ay sugayaan amnigiisa oo maraakiibta ka gudbi karto, balse saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in xaalad kasta oo noocan ah ay u fududeen sida loo maleynayo sida ay warisay Reuters. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa ku dhawaaqay weerar gaar ah oo ay ka fuliyeen gudaha Israa'iil inay maanta ku beegsadeen xarunta sirdoonka militariga ee Israa'iil iyo cutubka sirdoonka haga ee howlgallada Israa'iil ay ka fuliso Bariga Dhexe. Dhinaca kale, macluumaadka ku saabsan dowladda Jarmalka ayaa go'aansatay inay sii dayso qayb ka mid ah kaydadka shidaalka ee xaaladaha degdegga ah oo loogu talagalay sidii loo yareyn lahaa kororka qiimaha shidaalka ee ka dhashay dagaalka ka socda Bariga Dhexe sida ay warisay warbaahinta Bloomberg. 4 qof ayaa ku dhaawacantay garoonka diyaaradaha ee Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta kadib markii 2 diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ay maanta ku qarxeen meel u dhow garoonka oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan caalamka ee dagaalka ka socda uu saameeyay sida ay warisay xafiiska warfaafinta ee Dubai. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa hadda soo saaray war-saxaafadeed ay ka soo xigtay Al Jazeera oo ay ku sheegeen inay bilaabeen weerarkii 36aad oo ka dhan ah saldhigyada Mareykanka iyo bartilmaameedyada ku yaala gudaha Israa'iil, iyaga oo sheegay weerarkan inay ku adeegsan doonaan gantaalada Qatar, Imad iyo Khaybar Shaykan oo dhammaantood lagu xiray madaxyo qaraxyo oo 1 tan ka culus iyo bambooyin ay ku daadiyeen dhowr bartilmaameed oo isku mar ah, halka sidoo kale ay sheegeen weerarkan inay qayb ka yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya. Dhinaca kale, macluumaadka ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyay in la burburiyo awoodda gantaalada Iran, balse hadalkan si ay ugu jawaabaan ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa waxyar ka hor soo baxday iyaga oo ku warceliyay inuusan indhaha isku qaban xilli dhow oo ay weeraro culus ku qaadi doonaan Mareykanka iyo Israa'iil. Sacuudi Carabiya ayaa qorsheynaya inuu Ukraine ka iibsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu soo rido inta ay hawada ku jiraan. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si gaar ah kuwa loogu talagalay inay ka hortagaan diyaaradaha weerarada sida ay sheegtay Iran oo soo saarto. Sidoo kale, wadahadallada socda waxaa ka mid ah in Sacuudiga uu ka iibsanayo Ukraine nidaamyada gantaalada elektarooniga kuwaas oo lagu carqaladeynayo ama lagu joojinayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Heshiiskan oo weli wadahadal ku jira isla markaana aan si rasmi ah loo dhameystirin ayaa la sheegay in Ukraine uu u keeni karo malaayiin dollar sida uu wariyay wargeyska The Wall Street Journal.